halkani waa xaramkii meesha ay ishaadu qabanaysana waa saxankii kacbada oo maalmo uun ka hor ahaa goobaha ugu saxmadda badan adduunka ee uu aadamuhu ku kulmo. More than 2,000 people have died in China because of the coronavirus outbreak, and the Chinese city Wuhan is the epicenter of this virus. Ma yaqaan xuduud iyo qof gaar ah uma kala socno maalqabeen iyo sabool. Wuxuu go'doon geliyey dalal dhan, wuxuu kala xiray isku socodkii, wuxuuna argagax kala dhex geliyey dadkii, heer qof walba ka shakiyo kan kale. wuxuu haleelay madaxweynayaal, xildhibaano, siyaasiyiin, ciyaaryahano, maalqabeenno iyo maataba. wuxuu qaraacayaa albaab walba, wuxuuna beegsanayaa qof walba oo ay ishiisu qabato. wuxuu ka yaryahay aadamaha 10 milyan oo jeer. sidaasi oo ay tahay gaal iyo islaam, caddaan iyo madowba, waxaa loo midoobay iska dhicintiisa, welina awood uma helin inay iska caabiyaan. wuxuu marayaa dalkii 124aad ee uu booqdo. dal walba oo uu galana wuxuu dhulka la geliyaa sumcadiisa iyo dhaqaalihiisa, wuxuu galaafanayaa dadkiisa, wuxuuna u bedelayaa magaalooyinkiisa kuwo bahlagaleen ah oo ay haawanayaan wadooyinka iyo goobaha la isugu yimaadaba. 40 maalmood ee ugu dambeysay wuxuu gaaray khasaaraha uu geystay noolahan ilma aragtayda ah $6 trilyan, halka kumanaan qofna ay ku nafwaayeen. haddaba daawade, intee la eg tahay saamaynta uu geystay xanuunkan corona? ma yahay sida warbaahintu buunbuuninayso xanuun dilaa ah oo qof walbuu haleelo dilaya? sabilo kadib curashadiisa, maxay tahay wadooyinka ugu habboon ee looga hortegi karo? halkani waa Wabari Media, magacayguna waa Cabdiraxmaan Cumar. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. dhaqaale aan xad lahayn, tiknoolajiya horumarsan, ciidamo gaashaaman oo ku hubaysan hub uusan aadamuhu horay u samaysan, nidaam caafimaadkii ugu tayada fiicnaa ee uu abid aadamuhu gaaro, diyaarado xawaare sare ku soconaya oo soo koobay socdaaladii maalmaha iyo bilaha qaadan jiray, heer lagu tilmaamay adduunka aan maanta ku noolnahay inuu noqday sida tuulo yar oo ay dadku iska warhayaan, saacado kooban gudaheedna uu qofku ugu hayaami karo darafka kale ee adduunka. dhismayaal dhaadheer oo aanu horay aadamuhu xitaa ugu fakarin, iyo aqoon tii ugu tayada fiicneed ayuu adduunku qarnigan gaaray, heer uu aaminay inuusan jirin horumar u harsan oo uu soo kordhiyo. laakiin maalmo kooban gudahood waxaa isbedelay wax walba. waxaa joogsaday isku socodkii, waxaa go'doon galay magaalooyinkii shalay ahaa kuwa ugu booqashooyinka badan adduunka. dal walba wuxuu xirtay xuduudiisii, isagoo mamnuucay in la soo galo lagana baxo. waxaa la isugu habarwacday gaal iyo islaam, caddaan iyo madow, la dagaalanka noole 10 milyan oo jeer ka yar aadamaha. waxaa hantibeelay shirkado, waxaana qarka u saaran inay hantibeelaan dowlado. 40 maalmood gudahood wuxuu adduunku khasaaray $6 trilyan. ma yaqaan xuduud gaar ah, umana kala socno dadku. wuxuu haleelay madax uu ugu horeeyay madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro, wasiiru dowlaha caafimaadka Ingiriiska, wasiirka dhaqanka Australia, sidoo kale wuxuu ku dhacay saraakiil ciidan. arrintani ayaa ka dhigtay fayraskan mid noqda waxa keliya ee la hadal haya adduunkoo dhan. isbuucyadii ugu dambeeyeyna wuxuu dal walba u jihaystay inuu xirto suhdintiisa xuduudeed, cabsi uu ka qabo inuu soo gaaro cudurkan aan cidna kala soocayn. dabcan marka laga yimaado buunbuuninta ay warbaahintu buunbuuninayso saamaynta aan suubanayn ee uu reebaya xanuunkan, haddana waxaa barbar socday wararka fayraskan, warar sheegaya inuu ku lifaaqan tahay tabinta xoogga badan ee ay warbaahintu ku buunbuuninayso fayraskan. dhagar iyo mareeg ay dhagrayaan gacmo qarsoon. way badan yihiin filimaanta Maraykanka ah ee ka hadlaya curinta iyo yagleelidda xanuuno u badan fayrasyo, maadaama ay yihiin fayrasyadu kuwo si fudud u gudba, galaafan karana nolosha malaayiin qof bila aad u yar gudaheed. laakiin marka laga yimaado filimaanta, waxaa jira buug ay badatay hadalhayntiisu kadib xawaaraha argagaxa badan ee uu bilaabay corona inuu ugu faafo adduunka oo idil. buuggan ma ahan oo keliya mid tilmaamaya xanuun cusub oo ka dilaacay adduunka, balse wuxuu intaasi dheer yahay dhacdooyinka ku xusan iyo waxa aynu maanta arkayno. laga bilaabo cudurka magaciisa, goobta uu ka bilaabmayo iyo saamayntiisaba, wuxuu u qeexayaa qaab ka turjumaysa waaqaca corona ee aynu maanta arkayno. The Eyes of Darkness, ama indhihii madowga, waxaa la qoray 39 sano ka hor, gaar ahaan sanadkii 1981. waxaana qoray qoraaga Maraykanka ah ee Dean Koontz.
sheekada buuggan ayaa ku socota hooyo baadigoob ugu jirta inay ogaato qaabka uu u dhintay inankeedu oo la sheegay inuu dhintay xilli uu ku jiray dalxiis, laakiin hooyadan ayaa raadinaysa inay ogaato xaqiiqda in inankeedu dhintay iyo inuu nool yahay. kadib raadin dheer waxay ogaanaysaa in inankeedu uu nool yahay laakiin uu ku xiran yahay xero ciidan kadib markii uu ku dhacay fayras dilaa ah laguna magacaabo Wuhan 400. ogoona daawade, Wuhan waa isla magaalada Shiina ku taala ee uu ka bilowday xanuunkan maanta. intaasi oo kaliya kuma koobna, balse wuxuu sii xusayaa buugu in lagu farsameeyey xanuunkan ama fayraskan mid ka mid ah shaybaarada ku yaala magaalada Wuhan, gaar ahaan shaybaar u dhow goobta uu ka faafaya xanuunku. waana isla sheekada maanta la sheegayo ee oranaysa in xanuunkan corona bilowgiisu uu ka bilowday suuq lagu iibiyo kalluunka iyo xayawaano kale, iyadoo la aaminsan yahay in meesha uu uga yimi aysan ahayn fiidmeerta sidii hore loo sheegay, balse shaybaar u jiray 30 kilomitir oo lagu bacrimin jiray fayrasyada dilaaga ah ee soo weeraray jirka bini'aadamka. sidoo kale waxaa ku xusan buugga in fayraskaas la dhaho Wuhan 400, laakiin markii dib loo baaray xaqiiqda magacan waxaa soo baxday in magaca uu qoraagu u bixiyey xanuunka xilligaasi uusan ahayn Wuhan 400, balse wuxuu ahaa Gorgi 400 oo loola jeedo magaalo ruush ah ahna goobta lagu sameeyey fayraskaas sida uu qoray qoraagu xilligaasi. waxaad isweydiinaysaa daawade, magaca Wuhan 400 ma wuxuu ahaa been abuur? jawaabta ayaa ah may. dabcaddii labaad ee buuggan waxaa lagu bedelay booska magaca Gorgi Wuhan, waxaana laga dhigay goobta uu ka dilaacayo cudurkan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. haddaba sidee loo bedelay? sayaa bedelay oo qorsheeyey in Wuhan ay noqoto magaalada fayraskan adduunka ku baahinaysa? ilaa hadda lama oga taariikhdii la bedelay magaca fayraska ku xusan sheekadan, waxaana laga yidhi hadallo kala duwan, laakiin hadalka ugu yaabka badan ayaa ah hadalka uu ku fasiray qoraal lagu magacaabo Dan Evon oo ka qoray maalmo uun ka hor warbixin buuggan. qoraagan ayaa sheegay in magaca hubka biolojiga ah ee sababaya fayraskan loo bedelay magaca Wuhan 400 sanadkii 2008, taasoo micnaheedu tahay in qoraaga buuggan xilligii uu qorayay uusan malaysan in fayraskaasi uu noqon doono mid xaqiiq isku bedela magaca uu adeegsanayeyna uu noqonayo magaca magaalada uu ka tarmi doono. balse arrinta la yaabka leh ayaa ah inay jiraan dad gaar ah oo qorsheeyey bedelidda magacan, sidoo kalena ku talagalay in wax walba ay u dhacaan sida ku xusnayd buuggaasi. weliba xilliga ay bedeleen aysan ahayn xilli waqti badan laga soo wareegay, balse laga joogo sannado kooban oo keliya. marka laga yimaado buuggan waxaa jira isna filin kartoon lagu magacaabo Simpson oo isna xalqad ka mid ah xalqadihiisa, gaar ahaan xalqad la tabiyey sanadkii 1992 ka hadlaya xanuunkan, wuxuuna ku bilaabmaya iyada oo mid ka mid ah jirayaasha kartoonkan uu ka arkaya TV-ga xayeysiin aaladda wax lagu shiido, kadibna wuxuu dalbanayaa hal xabo. shirkadda uu ka dalbanayo ayaa ku taala dalka Japan, waxayna soo saarayaan iyada oo mid ka mid ah shaqaalaha shirkaddu uu qabo fayras hargabka oo kale ah. wuxuu ku qufacayaa baaketkii ama kartoonkii lagu ridayey mashiinka, kadibna wuxuu ka xirayaa afka, waxayna u dirayaan qofkii dalbaday. marka loo keeno oo uu furo, wuxuu qaadayaa fayraskii, waxaana sidaasi ku bilaabmaya faafidda cudurkan oo ay sheegayaan inuu muddo yar gudaheed ku faafaya adduunkao dhan. filin kartoonkan Simpson ayaa ah filin kartoon muran badan dhaliyey, caanna ku ah inuu soo tabiyo dhacdooyin sannado uun kadib isku bedela xaqiiq, sida dagaalka Suuriya ee ka socda oo ay sii sheegeen sanadkii 1996, doorashadii Barack Obama iyo Donald Trump, iyo weerarkii daarihii dhaadheera ee Maraykanka, taasoo ka dhigtay filinkan mid dad badan ay ku tuhmaan inuu yahay aalad ay ururo dahsoon kusii bandhigaan falalkooda quraacan ee ay qorsheenayaan. isku soo duuduubo daawade, xawaaraha sare ee uu ku faafaya xanuunkan iyo argagaxa lagu beerayay dadka, heer dadkii ay aamineen in fayraskan uu yahay mid dilaa ah, qof walba oo uu haleelana uu dilayo, ayaa ah mid isweydiinteeda mudan. maxaa yeelay xanuunkan ilaa hadda oo aan duubayno muuqaalkan wuxuu ku dhacay 169,113 qof, waxaa ka caafimaaday 76,618 qof, halka ay ku dhinteen 6,494 qof. marka laga yimaado qadarta eebe oo ah tan aan dhinacna u dhaafin nolosha aadamaha, haddana dadka ugu badan ee uu galaaftay xanuunkan ayaa lagu tilmaamaa dadka waayeelka ah iyo dadka xanuunada horey u qabay, halka 70% dadka uu ku dhacay ay caafimaadeen. marka laga yimaado sheekooyinka laga qoray xanuunkan, waxaa hubaal ah daawade in mar walba uu aadamuhu ka fogaado cibaadada iyo alle kacabsiga ay bataan xanuunada iyo masiibooyinku, si aynu inaguna u noqonno digninna ay ugu noqoto kuwa aan eebe rumaysnayn. corona ma ahan dhacdada keliya ee dhacday sanadkan, balse 3 bilood oo keliya wuxuu adduunku la kulmay dhulgariiro tiro badan, duufaano, dabaylo iyo cayayaan guuraya oo aan sannado badan la arag.
taasoo dignin inoo ah dhammaanteen sidoo kalena cabsigelin inoo noqonaysa. aynu ka dhiganno cashar xanuunadan aynan horay ugu aqoon iyo masiibooyinkan istabajooga ah ee maalinba maalinta ka dambaysa soo ifbaxaya. aynuna u noqonno eebbihii ina uumay. waa hubaal in dhib walba inaga joogsanayo. muuqaalkeenna soo socda waxaan ku eegaynaa bilo kadib xanuunkan maxay yihiin calaamadihiisu, sidee loo kala qaadaa, sidee looga gaashaaman karaa.